محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta waxa weeye bisha Abriil bishii afraad 29keedii weeye. waxa weeyaan maalimihii aan idinkala hadli jiray halkan oo aan idinka warrami jiray bishiiba wixii noo qabsoomay waxyaalaha waaweyn qabsoomay. waxaan doonayaa markaa ummadda Soomaaliyeed halkan naga daawanaysa inaan salaamo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa kale oo aan doonayaa inaan u mahadnaqo bahda saxaafadda oo mar walba diyaar u ah inay dadka Soomaaliyeed gaarsiiyaan wararka loo baahan yahay. waxaan kula talinayaa wixii sax ah inay gaarsiiyaan waa si fiican uga fikiraan waxa dadka loo sheegayo. mas'uuliyaddaas mas'uuliyad weyn weeyaan ay qaadeen waa in dadka wax sax ah loo sheego run ah oo ka baaraan degteen waa dawaba shaqadiina waa taqaanaan. waxa kale oo aan doonayaa inaan runtii halkan ka hambaliyeeyo dhalinyarada ciyaartooyga Soomaaliyeed horyaalka Soomaaliyeed oo maalmaha inagu soo foolle roundkii labaad ka ciyaari doona magaala Burundi dalka Burundi. aad iyo aad baan ugu hambaliyeenayaa. dareenkaygu aad buu u yahay ma garanaysaa sida ay u muujiyeen inaan maabka weli ku naalno maabka inaan ku naalno sida u muujiyeen. waxay qayb ka tahay taasi in dalkani soo noqday bay qayb ka tahay in maanta horyaalkeennu dowladda agagaarkeena ka soo badiyeen roundkii labaadna lagaba yaabo inay kusoo guulaystaan ama ha ku guulaystaan kaa ugu dambeeya ama yaana ku guulaysanay. waxa weeye tallaabo aad iyo aad u weyn oo aan qaadnay aad baan ugu hambaliyeenayaa waxaana leeyahay nasiib wanaagsan. maanta markaa marba wixii joogaan idinka warramaa. bishii hore ee dhammaatay ee bishii saddexaad ahayd dhammaadkeedii waxaan ka warramay 3 biloodlihii wixii noo qabsoomay bishii Maarch wixii noo qabsoomay iyo 3 biloodlihii sanadka horraatiisii wixii noo qabsoomay. waxaan uga warramay taa waxa weeyaan heshiis baan ku jirnaa aad u weyn oo aad u qoto dheer. heshiis aan dhibaatooyinka kaga baxayno adduunkuna inagula falgalay inaan dhibaatooyinka ka baxno. dhibaatooyinkan ka hadlayna waa garanaysaa mid dhaqaale mid social waa badan yihiin dhibaatooyinka waddankeena ku jira. dagaalo badan baa inagu furan. anigu xagga dhaqaalaha haddaan ka warramana in dhaqaalihii sare loo soo qaado waxa weeyaan dee kow bay ka tahay horumarinta waddanka in dhaqaalaha sare loo soo qaado wax walba dhaqaalii ku xidhan yihiin. marka anigu inta badan waxaan ka warramayaa waa dhaqaalaha weeye. 3 bilood waxaan idiin sheegay heshiiskii aan la galnay meesha caalamka oo hormood ay ka yihiin hay'adda lacagta IMF-ka la yidhaah iyo baanka adduunka aan la galnay ee ka soo bilaabayay bishii May 2017 oo ku dhammaan doona bishan May 7 ya 2018. halkaan maraynay 3 bilood ee sanadka bilowgiisa ayaan idinka warramay oo aad iyo aad tallaabo important la qaado loo baahnaa. bisha March aakhirkeedii waxyaalo badan oo la yidhi waxaa sameeya ayaa aan imtixaankeeda galay si aad u ogtihiin waana idinka warramay. imtixaanka markaa waxaan la galay IMF-ka ama hay'adda adduunka lacagta. waxay markaa noo sheegeen inay aad ugu kalsoon yihiin aadna ugu faraxsan yihiin inaan tallaabooyinkii wixii aan la saxeexanay oo dhan aan buujinay taasoo ay ku jirtay dakhliga kordhintiisa ay mid ka ahayd waxyaalo fara badan oo kalena ay ku jireen inaan idinka warramay. bishan markaa waxay ahayd lafagurka arrintaasi iyo istultaagga item walba mid walba istultaaggiisa ayay bishan ahayd. bishan 13keedii ilaa 23keedii waa 10 maalmood ayaa waxaan joognay Washington DC annagoo dad badan oo dhinacyo badan ka socda xafiiska prime ministerka xafiiska madaxweynaha central banka wasaaradda maaliyadda guddida dhaqaalaha ee muxuu ahaa cabinetka ama wasiirada annagoo dad badan oo dhinac walba ka socda oo anigu aan hogaaminayo ayaan halkaa tagnay. waxaan ka soo hadalay markaa waxaan noo qabsoomay sanadka yaan ka soo hadalay
tallaabooyin baan qaadaynaa waddaan soconaayo waddada halkaan marayna maanta ayaan ka soo hadalay dad fara badanoo na way ka hadleen cid alle ciddii Soomaaliya danaysa oo adduunyada inteeda badan ah gaar ahaanna wadannada Europeanska iyo America iyo Canada iyo garanaysa wadannada Carabta iyo hay-adaha ay leeyihiin lacagaha ku shaqale ayaa meesha isugu yimi 13 ilaa 18 waxaan anagu xil weyn iska saaray inaan cid walba gooni ula kulanno Americaanka la kulanno Europeanska wadan la kulanno ayaga oo wadanaana la kulanno iyagoo hay-adana aan la kulanno ayaan quwada saaray waan la kulannay simple waxaan uga warramaynaa wixii la nooga baahnaa kaasoo haa halkaasaan soo gaarsiinay wixii la nooga baahnaa kaasoo haa ayada waxay warqadii qoran tahay la soo ogyahay ayaa haddana wax walba reportkiisa aan haynayo waxaan leenahay wax walba la nooga baahnaaba halkaasaan marayna waxa taa noogu xigtaa markaa waxa weeye inaan waxaan idinka baryaynaa inaa noo hadashaan oo marka la isku yimaado shirka weyn oo 19 dhacay inaa noo hadashaan oo haddaad qanacsan tihiin ood ku qanacsan tihiin waxaan qabanay inaa caawimana siisaan in deynta la naga cafiyaan rabnaa deynta la naga cafiyaan rabnaa waxa kale oo rabnaa deynta cafinteedu inaan sanadka soo socda nala dhaafin ma rabnaa waxaan rabnaa imtixaanka ugu dambeeyay ugu weyna in maanta la nagu soo qoro labada bilood soo socda si aan uga baxno jaamacadaas hadii Ilaahay yiraahdo sanadka soo socda waqtigiisan ka baxno deynta la naga cafiyo ayaan doonaynaa markaa cid walba kala hadal waxa kale oo doonaynaa inay noo hadashaan oo aad tidhaahdaan 12 bilood soo socda maadaama aan wadadii ku soo dhacnay oo si fiican ugu soo dhacnay maadaama aan nala garateen wixii la nooga baahnaan ka soo baxnay maadaama aan muujinay inaan nahay dad mas'uula oo lagu kalsoonaan karo oo idinku qiraysaan reportidiina sheegayaan inaan noo hadashaan oo aad tidhaahdaan dalka Soomaaliya intaan cashuur dhaaf intaan la gaarin deyn dhaafka deyn cafiska intaan la gaarin waa in lacagaha loo furo lacaga fara badan oo adduunyada hore loogu mariyaa inaga xidhan waxay nooga xidhantana waa laba arrimood weey mid waxa weeye deyn badan baa la inagu leeyahay deyntaana meel saaro weeye talabaadna waxa weeyaan maamul wanaageena isku soo wada duuba waa maamul wanaag baan ka soo qaadayna maamulkii oo aan wanaagsaneyn intii hore oo dhan oo halka hagaajiyo ay nagu adkayn inaan hagaajino labada arrimood baa inaga hor taagnaa iyo siyaasado kale oo iyaguna kuwaas u dabada ku haya ayaa inaga hor taagnaa in lacagaha khafiifka laynoo furo marka qolo walba waxaan ku nidhi arrintaasaan idinka fadhina runtu waxay tahay waxa weeye in jawigu isbedelay ayaa runa jawigu inuu isbedelay oo xagga positive-ka isku bedelay waa runtu ay tahay in adduunyadu leedahay waxay indha arkayaan ayaa ilka gooyaan soo maaha waxaad qabatay oo la islu taagay oo hareeraha laga fadhiistay oo la isla eegay oo dee cadaan oo biyo kama dhibcaana ayaa la isla arkay oo la leeyahay waxa ma qabateen waa kan itus oo ka weeyaan itus oo taabsi adduunku weeyaan leeyahay xaqiiqadu marka waxay tahay waxa weeye inay adduunyadu isku wada raacsan tahay muddo yaroo gaaban Soomaalidu turnaround inay sameeyeen si soo bedeleen ay si fiican wax wadaan xaqiiqaduna waxay tahay waxa weeye oo dee reportyadan aad ka arki doontaan in markaa Soomaaliya mar haday saa tahay la caawiyo labada arrimood ee aan sheegnay wala inaga caawiyo in lacagaha la inoo furo in imtixaankii ugu dambeeyayna 12 bilood aan qaadano sanadka soo socdana aan ka baxno jaamacadda oo aan dadka Ilaahay ka mid noqono haddaan ku guuleysano time ka soo socota weeyaan ayaa la isku raacay marka 19 markaa shirkii ugu weynaa round table kala yiraahdo ayaa la isugu yimi Soomaaliya baa laga hadlayaa cid walba danaysaaba way timi dadaal u danaya baa jira danaha Soomaalida cid wal oo wax ku oola ama deyn inagu leh ama sida kale Soomaaliya u danaynaysa shirkaas ay isugu timi waxa ka hadlay aniga waxa ka hadlay Ingiriiska waxa ka hadlay Mareykanka waxa ka hadlay World Bank waxa ka hadlay African Development Bank cid alla cidii wax danaynayso oo dhani way ka hadashay anagu waxaan ka hadlay markaa si caadadu tahay nimayo waxa noo dirteen in ku heshiinay waa kan
item baan isku taagnay kaas saas waa saasaan nidhi kaas saas waa saasaan nidhi kaas saas waa saasaan nidhi proofkiina waa kan waxa kaloo leena waxay proofkaasi imikun ma hayee horaan soo diray markhaatiga iyagu waxa weeyaan hay'adda lacagta adduunka weeyaan baan ku nidhi iyagana way hadleen markhaati baan furaynaa bay yidhaahdeen inay nimankaasi wixii looga baahnaa ay boojiyeen ya wixii looga baahnaa inay boojiyeen ayaan markhaati ka nahay bay yidhahdeen marka waxaa la isla gartay in hore loo socdo labadii arrimood ee aan weydiinaynay in wadadeedii lagu sii socdo wadadii deen cafiska lagu sii socdo in layna siiyo imtixaan dambe oo ugu dambayna hadda waxaan ka dhaadhicinaya waxa weeye ila ogaanaysaan imtixaanadan la siinayaa mid inaga inoo gooniya maaha waa mid Afrika 25 wadan ay soo mareen oo liita ay soo mareen ya wadanada qaarna waxay ku qaadataa inaga waa imtixaankii saddexaad baan maraynaa imika kii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad baan gelinaa soo maaha qaar baa dhowr iyo 10 imtixaan gala oo dee haddaad kii hore ka soo bixido waa lagu soo celinaya waa sida ardayda iskuulada ku jirto kale way course-ka haddaad dhaafi weydo waa lagugu soo celinaya marka inagu waqti uma haynin laynoogu soo celiyo already 27 years baa inaga khasaaray 27 waqti laynoogu soo celiyo imtixaan dambe ma rabno waxaan doonaynaa kaan qaadanaba inaan ka soo baxno marka wax inaga laynooga dan leeyahay maaha waxa weeye waxaa yeel heblaaya yeeshay qaanuun qoran oo cad weeyaan jid cad weeyaan oo la raacayo waan leexleexad lahayn buugaa lagu eegayaa ama caddo ama madow ama cidda totaa kaasi waa ka qaanuunkiisana waa ka soo baxay weeyaan ya marka wax inaga laynooga dan leeyahay oo imtixaano badan laga qaado maaha inagu waxaan doonaynaa wadanka ugu yar ilaa 5 imtixaan baa laga qaaday markuu sidaas oo kala ah ya laakiin inagu waxay ila tahay muuqatana in imtixaanka ugu dambeeya ka yahay ya لأن كي هراء وينابع سوق هذا ناي وين أنت قادتهم بي عن توجد هذا بيكون حرنت عن توجد هذا مر بين يرقى تنا ويكون ران تمر بين بدن قادته وتراوا غمان كريانا يا توا وهم غمان كريانا ما ركت مركا امتحان نقول إنه قد اللي أي معها وامد أدوية دور على قاضي وحمركا إما كان كسوه شيني وحوي كو إن هي هذا عالم كوي نلا شقيان يا إن capacity building وحلا إلى هذا أما قوتينته تمرت شغالة هي شقة ذيو لأنك عاويو وزارة ده هي هذا كل شغالة ما finance كي الحاجة يعرفها هي معمول وناجة إن لك عاويو لبا إن مشاريع لفرو ومشاريع التمادو مشاريع الحاجة في يعني كجيران يمادان يا إيانا لو ترى مشاريع ده بلو جدو إمكو بلا بدون هدي لا يلها أنت أنا أقولناهي وحوي European Union يا أما أوروبا مدوجة يوروب يا كوكا African Development Bank World Bank كجرا African Development Bank عن ولي لها علاقات كي وصعداء يشيء كذا يصعدها Islamic Development Bank كجرا مركا إن لا فرو يلا يسكر راعي وهو حاليا soft window داقة فضط يا الداقة لا ينفرو مركي ورا أنا نفرين إلا ينفرو وحكلوا يسكر راعي أنا جاي IMF كا ليسكر هاي دايو وأن إسلاجر إنه كورس كان قادنين يا أما قادنين أنا إسلاجرنا وعن إسلاجرنا هذان ده وحيروه وصان قادنين ده وقت قادن وحلو بهاي هذان قادنا وكسبحنا وحنقول إنسان next year this time دي لهذا إلا نقدر في دون الديمة كو مركا بيشان صوصة يلا بدأ عشان نوها دي مي تضبط ده وحن سوق تغني نيروبي وحن سلسلة قرنينا chapter كورين صاحدنا يا chapter كورين صاحدنا امتحان كلا بعد SMP2 لورني صاحدنا كلا بعد قالين كدوبنا كسدحات كيس سدحات قالين كدوبنا كورسيدا عن قادنا إننا ونسلا قرنايو هذان كسب بحنا وكورسز كوجودن بيا ويان امتحان هذا لقاضو سي دين تلاقى عفيو يا أيا لقاضي يا امتحان هذا هو حكمنا الرميد معمول وناجا دولة أنسي ودني وأنسي ودنو أيا كمدا وأنا دي شيء وحكمدا ذلك كان هو مده
cashuurihiisu inay midoobaan ya gaariga Kismaayo kasoo dega iyo ka Muqdisho kasoo dega iyo ka Boosaaso kasoo dega ya inay isku cashuur noqdaan yani haddii kala wadano kala gooniya ayaa de noqonaynaa maaragtay inay isku mid noqdaan ya customka furdada waxa la yiraahdo wixii kasoo dega midna waa cashuur midna waa fiigii customka laga qaaday in la mideeyo waa ka mid ah ya waxa ka mid ah inaan heshiis ku gaadhno ilaa dal kaliya nahay khayraadkeena iyo sida loo qaybsanayo ay kow ka tahay muxuu ahaa kalluunka ya already meel fiican laga gaadhay ayaa ka mid ah waxyaalo noocaas ayaa ka mid ah waxa ka mid ah in aan jiri karin qof mushaare ka qaata dalkan oo aan account lahayn farihiisuna aan la qaadin simply waxa loo baahan yahay waxa weey baa la leeyahay qofkaad lacagta siinayso ogow inuu isaga yahay ya qofkaad lacagta siinayso inuu isaga yahay ama iyada tahay ogow in badan baan taas soo qaadnay oo de shaqaalaha oo dhan baan samaynay wixii hadhayna inaad soo dhamayso gaar ahaanna looga jeedo security-geena ciidamada dalkeena afarta ah cid walba in mushaarkooda loogu qoro meeshooda inay yimaadaan la xaqiijiyo qofkaan in mushaarada laga gooyo ama su'aalo la isweydiiyo adduunyada soo ku dhaqanteen ku dhaqano qof loo mushaara qaatay inaanu jirin ya oo dhowr meelood oo double dipping waxa la yiraahdo sameeya inaanu jirin waxyaalaha noocaas oo kala ah ayaa laynooga baahan yahay marka waxaan ku soo heshiinay inaan laynoo fududeeyo arrimaha noocaas oo kala iskuguna tagno May bishan soo socota 7 ilaa 13 annaga iyo hay'adda lacagta aan isku tagna halka waxa kale oo aan isla garanay in lacagtii Soomaaliya la daabaco tallaabooyinka wixii laynooga baahnaa si lacagta loo daabici lahaana imtixaankii labaad ee SMP2 loo dhanayay ku jireen waana fulfill garaynay waa dhamaynay waxa markaa la isla gartay in lacagta daabaceeda la soo dedejiyo waxa kale oo la isla gartay lacagta daabaceeda ayaa qiimo leh yani waxaan u jeedaa lacagta si loo daabaco iyo kharash kaaga baxaya ya wala yaab inaan idin sheego lacagtoo la soo daabaco ayaa waxay naga baxaya 41 milyan oo dollar yani si lacagtaadii loo soo daabaco waxaad u baahantahay 41 milyan 41 milyan inagu ma haynaa halkii laga keeni lahaa ayaa dadaalkeeda lagu jiraa ugu jiraan qolooyinka doonaya in lacag samaysano taasina iyadana waa la isla gartay waxaan filaynaa marka dhawaan lacagteeni inay soo noqoto ayaan filaynaa waxaanay noqonaysaa wax weyn tallaabooyinka waaweyn aan qaadanay ka mid tahay in lacagteeni soo noqoto waa shilin Soomaali wax ku iibsato ya ayaa ka mid tahay taasina waa bushaarooyinka waaweyn in yar baa wax soo noqonayaan ay tahay inay u soo noqdaan waxa kale oo aan doonayaa markaa inaan idin shaqada faraha badan leh dad iyo Soomaaliyeed ee sharafta leh shaqada faraha badan leh ee la soo qabtay ma ahayn wax wasaaradda qabatay wax hay'ad kaliya qabatay dalka oo dhan bay isugu tagay hormoodka iyo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu hormoodka yihiin wasaaradaha oo dhan bay isugu tagay waxaan idin sheegayaa arrinta imtixaanka sanadkii markayna soo dhaafay shirar badan baa jiro oo usbuucla ah toddobaadkiiba mar la qabto iyo qaar labada wiigba mar la qabto ayaa jira ajendaha muxuu ahaa kabinetka ama golaha wasiirada ajendaha khamiista waxaan u malaynayaa maalin aanu ku jirin SMP2 maalin aanu ku jirin aanay jirin prime ministerku wuxuu isku dayay maalin walo shir leeyahay khamiiseedba inuu beelo arrintii ka waran SMP dalka maraysa agenda item buu ya shirka kale la qabto muxuu ahaa axadda ee golaha muxuu ahaa guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada asagana gudoomiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku asaguna maalin ku jirin inay yareed baan umaleynaya maalin ku jirin yaa ra'iisul wasaare ku-xigeenku yiraahdo arrintii laga warramay SMP dalka maraysa laba soo maaha halka iyaga wasaaradda maalin wal oo isniinaba
agenda ay waxaan leenahay shir isaga u gaara SMP 2 u gaara maalin wala isniina halka la isugu yimaado warqadii leexadii la soo qaado oo la yiraahdo tan halkeen marayna kaas halku maraya maxay sidaa u tahay war arinta ka jawaaba oo dabeetana magaranaysa laga shaqeeyo dad dhan baa ka shaqeynayo isniin walba halka wasaaradda intaan isugu nimaado aanu la faguro wax waliba halkeen maraya ya labadii weekba mar waxa isku imanaya wasaaradaha ku shaqada oo dhan ay hormuud ka yihiin wasaaradda maaliyadda iyo central banka wasaaradda qorsheynta iyo dhowr wasaarado kale oo marmar u yeedhano iyaguna ay ku jiraan ayaa labadii weekba mar halka isku yimaada wasiirada isku yimaada iyo technical people oo su'aalo weydiinaya arintaas maxay u daahday mid waliba date bay leedahay la qabta tahay marka reeyay waxa ku muuqanaya waxa weeye inuu dalkani isku yimid meel ku socdo ayaa ku muuqanaya waxa kale oo ku muuqanaya waxa weeye haddii aan sidaas u wadno oo isku nimaado saa ku wadno ya waxaynan qaban karin inaan jirin ya waxaan naga qontaa anaga waxa weeye sanadkiisa haddii ilaahay bisheeda inaan fadhino miiska sidii la inooga daayay deynta la inooga daayay deymahaas waxyaalo badan ayaa inaga joojiyay sanadii ku sheegay hore waxay naga joojinayaan dalka dhismihiisa bay naga joojinayaan waxyaalaha maanta la inooga baahan yahay kale waxa kamid ah in dakhligeenu sare u kaco mar walba waxay tahay dakhligu inuu sare u kaco condition ku xidhan in wax la noo furiyeen kale horta marka hore adigu lacagtaada urursa weeyaan dee ururin ma lagu jirayaa baa la is odhanayaa maaragta waa lagu jirayaa ilaa heerka adduunku jooga aan gaadhno ya jeebkeena inta ku jirtaa la ogyahay inta muxuu ahaa baayac mushtarigeenu hayaa la ogyahay dhaqaalaheenu intuu yahay baa la ogyahay dhaqaalaheena koridiisu halkuu joogaa la ogyahay therefore waxa la ogyahay waxa kaa bixi kara yaa la ogyahay labadii baa la isla eegayaa waad hooseysaa baa lagu odhanayaa ya wax iska sheeka ama wax qoran oo mathematical weeyaan oo la xisaabiyo ya marka la isku eego marka dakhliga wadankaaga soo galaya economiga dhaqaalaha oo dhan la isla eego iyo cashuurta soo ururiso inta ay ka tahay baa lagu sheegay lagu oranaya look you are not serious baa lagu oran hore u soo kaco halka ka waa soconaa wali waa soconaa laakiin in yar baan soconaa in yar marka dakhliga in la kordhiyo waa soconaysaa cid wala wax lagu leeyahay inay bixiso ayaa loo baaday dalku dhismi maayo hadii kale dalku dhismi maayo halka la doonayo in la gaadhana adduunka aan idin ka warramo waxa weeye kharash wal oo dawladda ku baxay inaad adigu jeebkaaga bixiso ama mushaharada ha noqoto ama macallimiinta ha noqoto ama ciidamada ha noqoto ama laydhka iyo biyaha ha noqoto wax wal oo dawladdan ku shaqayso ya waana jeebkaaga bixisa waxa kale laga bixinaya deynta aad ku qaadan doonto deyntu waxa weeye 200 milyan baad qaadan oo deyna waxa lagu dalka lagu koriyaa waa taa weeyaan 200 deynaad qaadan haddana 200 deeqaba qaadanba 200 deeqa iyo 200 deynaad qaadan waa imse 600 milyan soo ma 1 billion baad qaadan haafna deyn yahay deynaan interest lahayn weeye ya 15 sanana waxba laga qaadan grace period la yiraahdo weeye wadooyin iyo iskuuleeyo jaamacado waxba dhisi wabiyada soo fataya habayni oo hagaajini 15 sano dabadeed ayaad yar u bixin 30 sanaad bixini waxaan macnaheedu way marka taasi bixinteeduna waa in gudaha ka timaada marka wax walba aad isku qabee waa lagu fududeynaya adduunki baa isku tagay lacag isku geeyay adduunka hore loogu marinayay ayaa loo khafiifiyay ma garatay haddaad ka qaadan lahayd commercial bank meel yaalda waa lacag qaali noqonaysa laakiin lacag interestkeedu aad u yar yahay oo boqolkiiba 1 ka yar yahay yaa lagu siin 15 sano waxba bixin baa lagu haday deynta weeyaan haddii kala waba deeqba inta hore oo dhan waa deeq taa lafteeda waxa la qiyaasayaa income-kaagu intuu yahay waxa ku soo galaya intay yihiin baa la qiyaasayaa hadduu intaa yahay deeq baa lagu siin ilaa halka aad soo gaadho deeq baa lagu siinaya adduunku deeqbu marka horeba meel ku soo gaadha ma iga rumayso 1 billion baa lagu siin lagu dhan waa deeq basuuladaadii arrimaha ku dhiso 1 billion halku gaadhi Soomaaliya meel weyn buu gaadhi laakiin waa inaan tubta ku dhacnaayo aan is habaynaayo ya aan is habaynaa tubta ku dhacnaa wixii la inooga baahan yahay dadka dhan ba looga baahan yahay aan sameeyno now waxaan u malaynayaa aniga halkaas ay iga dhan tahay ya waad salaamaya su'aaliya laba hadda haysaan waa okay weeyaan salaamu calaykum shurta soo ururiso inta ay ka tahay baa lagu sheegay lagu oranaya look you are not serious baa lagu oran hore u soo kaco halka ka waa soconaa wali waa soconaa laakiin in yar baan soconaa in yar marka dakhliga in la kordhiyo waa soconaysaa cid wala wax lagu leeyahay inay bixiso ayaa loo baaday dalku dhismi maayo hadii kale dalku dhismi maayo halka la doonayo in la gaadhana adduunka aan idin ka warramo waxa weeye
kharash wal oo dawladda ku baxayo inaad adigu jeebkaaga bixiso ama mushaharada ha noqoto ama macallimiinta ha noqoto ama ciidamada ha noqoto ama laydhka iyo biyaha ha noqoto wax wal oo dawladdan ku shaqayso ya waana jeebkaaga bixisa waxa kale laga bixinaya deyntaad ku qaadan doonto deyntu waxa weeye 200 milyan baan qaadan oo deyna waxa lagu dalka lagu koriyaa waa taa weeyaan 200 deynaad qaadan haddana 200 deeqaba qaadan ba 200 deeqa iyo 200 deynaad qaadan waa imse 600 milyan soo ma 1 billion baad qaadan haafna deyn yahay deynaan interest lahayn weeye ya 15 sanana waxba laga qaadan grace period la yiraahdo weeye wadooyin iyo iskuuleeyo jaamacado waxba dhisi wabiyada soo fataya habayni oo hagaajini 15 sano dabadeed ayaad yar yar bixin 30 sanaad bixin waxaan macnaheeyo way marka taasi bixinteeduna waa in gudaha ka timaado marka wax walba isku qabee waa lagu fududeynaya adduunkii baa isku tagay lacag isku geeyay adduunka hore loogu marinayay ayaa loo khafiifiyay ma garatay haddaad ka qaadan lahayd commercial bank meel yaalda waa la aqaalay noqonaysa laakiin lacag interestkeedu aad u yar yahay oo boqolkiiba 1 ka yar yahay yaa lagu siin 15 sano waxba bixin baa lagu haday deynta weeyaan haddii kala waba deeqba inta hore oo dhan waa deeq taa lafteeda waxa la qiyaasayaa income-kaagu intuu yahay waxa ku soo galaya intay yihiin baa la qiyaasayaa hadduu intaa yahay deeq baa lagu siin ilaa halka aad soo gaadho deeq baa lagu siinaya adduunku deeqbu marka horeba email ku soo gaadha ma iga rumayso 1 billion baa lagu siinoo lagu dhan waa deeq mas-uuliyadaadii arrimaha ku dhiso 1 billion halku gaadhi Soomaaliya meel weyn buu gaadhi laakiin waa inaan tubta ku dhacnaayo aan ishabaynaayo ya aan ishabaynaayo tubta ku dhacnaa wixii la inooga baahan yahay dadkoo dhan ba looga baahan yahay aan sameynaa now waxaan u malaynayaa aniga halkaas ay iga dhan tahay ya waa idin salaamayaa su'aal iyo laba haddaa haysaan waa okay weeyaan salaamu calaykum naxariis janno ilaahay ha siiyo beledweyne waxaa la yidhi webigii baa soo fatahay dhibaato weyn buu gaarsiiyey eeg hadda inaan sanad 3 sannadoodba sanad biyuhu ina xaaqaan 3 sannadoodba sanadna abaar ina xaaqdo wax la aqbali kara ma waan iska fadhinaa waxaan qabanayna ma jiro ya waan iska fadhinaa adduunkana waxaa la yidhi haddaad iska fadhido waxba nature-ka u dayso ilaahay aad u qabo ma qabanayo ya waxaa loo baahan yahay inaan inagu wax ka qabanno aad baan uga xumahay fatahaadaha dad fara badan ayaa ku dadiya adduunyada beelayba ayaa saak radio ka maqlay waanu tacsiideynayaa insha Allah tacaala deymaha iyo dhibaatada markaan ka baxno wabiga iyo biyihiisa waan iska habayn doonaa waa khayraad weeyaan dhibaatadii khayraadka ka timid weeye khayraadku maamul bay u baahan yihiin iyo magaranaysa iyo habayn iyo maareyn bay u baahan yihiin insha Allah tacaala waxban ka qaban doonaa abaarahan soo noqnoqdayna waxa weeyaan maanta webiga biyihiisa haddii la habeeyo abaar waxba ka qaadimayso example-ka aan always aan u bixiya waxa weeye dalka Tunis la yiraahdo 10 sano ku noolaa Tunisia waa dalan roob ku diinba roob badan kuma doo wax yar baa ku daa laakiin haddana weliga arkimaysid abaar baa dadka haysa ya yani habka ay biyahooda u manage gareeyeen mar haddii roobdaan dhibic ka halaabaysa ma jirto wadada gaariga buuxsamaysa imika halkan Muqdisho dabeetana dhinaca looga bayrayo taasay habeeyeen biyo yaasay habeeyeen torab walba meel bay ku dhacaysaa wala soo sifaynayaa magaalada la soo galnay alcabaya wala hawayna inagu waxaasi mushkiladdu waxa weeye roob hadduu daayo aqaladeena inuu geli markaan ka soo baxnana biyo way socdeen baday galeen hadhow baa la odhanayaa adduunyoy roobnaa banays biyo daay baad wax ka qabadaa ya marka insha Allah waa soo toosi doonaa inaan soo toosnaana loo baahan yahay intaan hadiye waraabayna kala boobin inaan soo toosno yaa loo baahan yahay waxaan u malaynayaa jidkiina ku taaganaa aan saafay aye rajo weyn baan ka qabaa horta Soomaaliland hay noo taalo ya waa arrin u baahan shaqo badan laakiin inta israacsan ee Puntland xagga ugu xigto wada hadallada socda waxaan filayaa in meel la isla soo gaari oo taanagu wasiiradayadu waan shirnaa ilaa 4 jeer baan shiraan u malanayaa sanadkiina dhaafay imikana way noo qoondaysan tahay way noo qorshaysan tahay waxyaalaan ka wada hadlaynana inaan cashuuraheena midayno wax dhibaato meesha ku jira ma jiri karo haddii bila quman waxaan isla garanay waxa weeye madaxduna isla garatay madaxda dawlad goboleedyada madaxweynayaasha iyo madaxweynaheena iyo prime ministerka isla garteen waxa weeye
baahida loo qaba in wax la mideeyo haddii la mideyn waayo yaa dal kala daatay oo dhibaato haysato ma noqonayna maarta wax weyn oo reeli ku jira ma jiraan gaar ahaan markaad eegto in dadkan wax iibinaya dadkii Soomaaliyeed yihiin oo halkan ka iibinaya inuu halkaan ka iibinayo meel walba dadkii un baa jooga maarta anigu waxaan tagay Abu Dhabi meesha wax laga soo dhoofiyo Dubai the same people dadka un baa soo dhoofiya wuxuu halkan keena iyaga laftooda waan iswaafaqsanahay waxaan isku waafaqsanahay inuu dalkan dhismo u baahan yahay dhismaana qof walba intiisa yar inuu qabto yaa ayaa loo baahan yahay dawladdu markaa waxay u baahan tahay inay sharcigii midayso sharci baan imika socdaa sharciga dawladda oo dhan baarlamaan keliya aan leenahay maarta baarlamaan keliya ayaan leenahay baarlamaankaasi wuxuu ansixiyo yaa in la dhaqan geliyo la hirgeliyo waa laga maarmaan weey marka dhibaato badan aniga iga mahayso ما داخلي عشورته iyo lacagta daabacadeedu isku ma xidhna lacagta daabacadeedu waxay ku xidhan tahay dhaqaalaha guud ee wadanka ay ku xidhan tahay cashuurtana waa qayb yar bay ka tahay oo dhaqaalaha wadanka lacagta wadanka dawladda soo galaysa qaadideeda iyo badinteedu waxay lagama maarmaan u tahay hor u socodka dawladda iyo dalka Soomaaliyeed iyo u tahay marka lacagta waa la daabacayaa waxaana la daabacayaa in dhaqaalaheenu uu qaadi karo intaasoo bilyan dhaqaalaheenu qaadi karo yaa la daabacaya taa labadaas isku xidhan tan kale kordhintuna waxay tallaabo u tahay waxa weeye inaan inaga go'an tahay arrinta inaan hore u socono aan cashuurta ururno iska bixina barba kharashkeena yaraado dakhligeena sare u kaco dakhligeena mar sare u kacaba haddana aan magaranaysa wax qabadka badino oo aan ka korayn salary la bixiyo waxyaalo kale la bixin karo hatta la dhisi karo hospitaalo iyo iskuulo iyo arrimo kale la dhisi jaamacadaha la dhisi karo oo aad saad u ogtahay budgetkii ugu dambeeyay aan bilownayba yaa markii ugu horeysay inaan lacago u qoondayno wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda education tacliinta aan u qoondayno sidaana ay ku sii socoto marka dakhliga soo gelintu arrintaas ay ku xidhan tahay dakhliga lacagtuna dhaqaalaha ku xidhan tahay okay